قصة عجيبة نين أي حاسكيسا كويري بري waxaan casuumaya reerkaygii baryahan ismaan warag aabahay walaaladay iyo hooyadayba marka casuumad fiican qada ahaan inuu karay waayahay ay ku tiri markii waagii bari ayuu ninkii shaqadiisa u baxay duhurkii markuu shaqadii ka yimid ayuu guriga soo galay waxa uu arkay iyadoo waxba karin wuxuu ku yiri maxaad cunto wanaagsan u sameyn weyday miyaanan kugu oran ehelkayga baa imaanaya waxay ku tiri dee ehelkaagu ma ahan qariib ee waxaynu cunno oo kale ayuun baynu siin dadka qariibka ah yaa liska hagaajiyaa oo casuumad fiican loo sameeyaa ninkii wuu yaabay gurigiina waa uu isaga baxay cabaar kadib albaabka guriga ayaa la soo garaacay gabadhii ayaa ka furtay mise waxaa dibadda taaganba hooyadeed aabbaheed iyo walaalaheed naxdin ayay la aamustay aabbaheed ayaa ku yiri odaygaagii ayaa nala soo hadlay shalay oo noo sheegay in casuumad xaafadda bari lagu samaynayo ee aaway casuumaadii haweenaydii yaab iyo amakaag ayaa helay kadib ninkeedii ayay taleefanka ka wacday waxayna ku tiri maxaad iigu sheegi weyday inaad reerkaygii soo casuumtay wuxuu yiri ehelkaygii ehelkaagu inay isku mid yihiin baan moodaye oo anigu ehelkayga ayaan u heystay waxay ku tiri haddaba hoteelada qada ka soo qaad intuu ku qoslay buu ku yiri qadadaad ehelkaygu ugu tala gashay qisadani waxaynu ka fahmaynaa muhiimadda ay leedahay daacadnimadu inaad daacad u ahaato qofka kuu dhow waa shay la amaanay ee aynu ku dadaalno